arrin aad iyo aad u xasaasi ah boqolkiiba boqol oo ayaantan oo dagaalka ama dagaalada fanaaniinta ama dagaalada youtuberada aad iyo aad u batay magna garanayo sababta wixii sababay in ay laba isku soo horjeestaan ama laba ay isugu dagaalaan ayaantan waxaa Soomaalida ku badatay dagaalada ay dadka ama social media ku jiro oo ah ama dhanka YouTube ka noqdaan ama ha noqdaan dhanka fanaaniinta noqdaan ama dhanka TikTok ka noqdaan ama dhan walba ha noqdo dadka social media ku jiro waxa aad iyo aad u soo farbatay ama sanadkan aad iyo aad u soo batay in ay laba marka waxa sababana ma garanayo in ay laba isku jeestaan ama ay laba isku dagaalaan waa arrin aan dadka ayna ku baran ama dadka ku xiran markaas ayna ku baran in ay laba isku dagaalaan ama laba iska soo horjeestaan marka war badan hal ma buuxshay maanta waxaan ka hadli doonaa ama ay sababta isku dagaaleen fanaankan Wizkid la dhaho iyo Kinsigey iyo wixii sababay arrimaha ay isku dagaaleen marka dagaalkan labadan qofood ama labadan wiil wuxuu bilaabay dagaal waxa ay waqti fara badan ama waqti hore ama waqti fara badan oo ahaa marka waxaan uu ku bilaabay markii ay yimid wiilkan fanaankan la dhaho Kinsigey ama youtuberkan oo yimid wadankan Kenya caasimadda Nairobi marka waxay isla soo qaadeen labaduba hees bay isla soo qaadeen show bay qabsadeen magaalada Nairobi ku wada qabsadeen markii ay Nairobi showgaas ninkan la soo dhaweeyay fanaanka kale ama youtuberkan kale magaalada Nairobi lagu soo dhaweeyay wiilkan fanaanka Wizkid soo dhaweeyay oo soo dhaweyn aad iyo aad weyn loo sameeyay ama qof walba dareemi karo ama uu arki karo loo sameeyay showgaas oo labaduba ay ka tumeen xitaa aroosyo fara badan ay ka tumeen marka heesna ay isla qaadeen labaduba dagaalkooda wuxuu ku bilaabday ama arrinta aad ku xasaasi ah dagaalkooda in uu ka bilaabday dhanka fanka ama isku qabsadeen dhanka heestaas oo ah oo xaday sida la sheegayo fanaankan ay leeyihiin ama youtuberkan CK leeyihiin ay xaday heestaas marka uu ku copy gareeyay ka arrinta halkaas ay ka bilaabatay ama dagaalkooda halkaas ayuu ka bilowday marka wiilkan ama youtuberkan kalena copy sameeyay oo dhanka heesta ah marka dagaalkooda hadda wuxuu marayaa in ay labaduba hees soo qaadaan oo wiilkan ay Wizkid leeyahay fanaankan oo soo leeyahay surwaalka wixii wasaqay waa adiga camal marka waana arrin ninkan ku socoto oo Butuule Kenya oo ku leeyahay heesta ciwaankeeda Butuule Kenya la dhahaa marka waan iska dareemi kartaa Butuule Kenya qofkii la dhaho ama qofkii loola jeedo arrintaas waa qof wax iska cad ama waxa iska muuqdo wax oo hadda in qof walba loo sheego loo baahan qof walba in ogaado loo baahan maahan marka isigana commission wuxuu soo yiri hees cusub oo soo saaray oo aad iyo aad aflagaatay inaba caadi ahayn ay tahay isigana marka hawada wax isku weedaarsanayaan erayo aad iyo aad u kulul ama erayo aad iyo aad u xarf badan ama erayo qof walba uu fahmi karo oo qofkii ku socoto ama qofkii loola jeedo marka waana arrin aad iyo aad looga xumaado ama qof walba uu ka xumaanayo in dhalinyaradii sanadkan mid ama laba isku soo horjeesanayaan marka waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa ka wada xun waan ku maasitiin daawashada muuqaalkan hadda nagu cusub tahay nagu soo bir kamid noqo kumanaanka kun nagu xiran janaalkeena aad ba maasantiin next video iyo waxaan leeyahay bye bye.